dhuu xageesiga ee xukunkii dhagoole ahaa dheeli baa galay dhuflada iyo heesii ma shido muuse dhaantada ee amankaag dharaarahan hadduu dhiiranaan jiray dharraqaankii buuniyo ma jiro dhinacyo weyntiiyo kaahin baa haddeer dhaygagiyo dhoobigii hagare shalay waxaad ka dhiilowdaybaa dhacaya maandhowe la dhadhami dhibtaad sheegaysiiyo dhaarti calay oo maanta dhulkii yaaban yahay dhiiggu lowlabeeye dhimashadu camuuddaa ka badan dhib iyo aafaade dhaawaca darbani waa malyaan dhiilo joogta ah ee tiro male dhaleeyada qaxdiyo cabdiyow dhammaysiyo hashii dhiigga lagu daajiyey dhiicaan hashii loo shubiyo dhuuxa iyo heeg raggii dhiiranaan jiray hashii dhababka loo saaray wixii lagu dhammaadiyo hashii dhamacda loo jiidhay dhimashada hashii loo mutiyo dhaawiciyo hoogga dhib kastaba hashii loo mariyo dharasti maadayse dhalandhoolka nabadii waxaad dhidibada waastay dhafarka iyo soo jeed waxaad dhididay hawsheeda qarankaad dhisaysiiyo adeer dhicisay maandeen kulanti wacan daawadayaal meel kastoo aad naga daawanaysaan halkani waa Horyaal TV aniguna waxaan ahay Sidiiq Xaaji hadda garabkayga waxa fadhiya Abwaan Bulay Abwaan ugu horeyn waan kugu soo dhaweynayaa Horyaal TV waxaan leeyahay waxa soo saartay gabay aad kula hadlayso dadkii aakhiro ee dhintay bal gabaygaas iyo sababta kugu dhalisay iyo waliba sababta ku soo beegtay xaaladda hadda taagan noo iftiin الله الرحمن الرحيم ولا الصدق والدو هي أديك يهريال تفينا عبان الإسلامية يعيد كستو برامج كذا داون دونتا قبل كان ها وجلا ولا قبل قاسي قبل اللي هذا ويدم بالآخره مركم في السلاح يصدق يحارد كتاب مقالة الناس عنه وحي صوب حدا لبن إنه وقت كان عن تشوجين الله بحنا لكن اللي الكريم والله نحرسته علي خليف قليل هو جميه أرتدا دارا iyo marxuum Xaaji Cabdi Waraabe aabihii nabadda iyo horumarka marxuum Xaaji Cabdi Waraabe marka horta qof dhintay dalaalama hadlo dhambaal iyo fariin baan tigay baa gabiga ku jirta dhambaal iyo fariin baan tigay dhuuxa aakhiro si kasta oo dhaantay oo dhallo suugaanta dibiyada soo dhalanaysa dhimatay wiilhooday aakhiro lama hadlo oo de gabay ma tago anigu uma doon baan la hadlayaa laakiin waxa ii muuqata inaanu maanta Ali Khaliif waxa la ninka ugu dheer baa dadka ugu ayaan daran iyadoo aan dhibtani jirin bucaal khaliif hadlay oo qaynay oo laha warkaalaya wixii aan wada galay aan dhamaystirnay heshiiskii dhigaha laga furaystay isaga wixii beriga u muuqday nimanka maanta xukunka jooga uma muugin laakiin maanta waa xaqiiqo ah hadalkii iyo sidii loo dhageystay Allahu naxariistay Ali Khaliif ee dhigaha looga furaystay maanta laga qoomamaynayo marka tan xaaladda maanta jirta la eego marka Ali Khaliif waxaan sheegay wixii beriga ka digayay in maanta cagaha lagu jiro Cabdi Waraabina waxaan sheegayaa sidaas oo kale hashii de iyo maxaan ku dhahdaa nabadii uu soo cidiye jabay ee ku soo baabay in maanta ay meel halis marayso laakiin ilaahay adduunka iska lahaa waa jiraa marka gabaygan doonayaan aan guda galo gabayga magaciisa waxaa la yihahdaa dhambaal aakhiro gabaygu wuxuu ku bilaabmayaa sidan dhawaq iyo calow ereyada dhaaxo tabinaysay taladii iyo dhambaaladii doraad dheeftii laga baydhay tabashadii iyo dheegoo waxaad dhab ugu luuqaysay hadalkaagii lama dhuuxin iyo dhaar waxaa tiriya waa layska dhiga maray waxaad daadanayd beriya warkii dhiifta loo qaatay bay maanta duwataayo dhaliishaadii waa loo darsaday dhimashadaadii iyo dhitadeedii maantay hayaan nimankii dhohnaayo shalay waxaad ka dhiilowdaybaa dhacaya maandhowe la dhadhami dhibtaad sheegaysiiyo dhaarti calay oo maanta dhulkii yaaban yahay dhiiggu lowlabeeye dhimashadu camuuddaa ka badan dhib iyo aafaade dhaawaca darbani waa malyaan dhiilo joogta ah ee tiro male dhaleeyada qaxdiyo dhiiftu calay oo dhirta iyo dhagxaantaa cabsaday damac rasaaseeda dhurwaaga hilbaha raamsadiyo dhuuxa geesiga ee xukunkii dhagoole ahaa dheeli baa galay dhuflada iyo heesii ma shido muuse dhaantada ee amankaag dharaarahan hadduu dhiiranaan jiray dharraqaankii buuniyo ma jiro dhinacyo weyntiiyo kaahin baa haddeer dhaygagiyo dhoobigii hagare kaahin baa haddeer dhaygagay iyo dhoobigii hagare haddaa dhimashadaadiyo la tibay dhoofkii geerida ee haddeer ay dhadhamiyaan khalqigu dhihitinkaagii iyo dhawaaqaagii bay gocanayaan dhaabadda lahaa ee dhaxalkaagii bay milicsadaan dhegiha ownaayo dhibta iyo muxuu talow ka qaban dhiigga qubanaya dhambaalkani muxuu tari adeer dhiriftay hawshiiye dhabaqday halyay waxa ay dilay dhoofkii geerida ee si kastoon u dhaanteeyo oon dhololo suugaanta dhambaal iyo fariin baan tegay dhuuxa aakhiro ee dib miyaad u soo dhalanaysaa dhimatay wuu joogay marka qaybtaas waa qaybtaan kula hadlayay Ali Khaliif cabdiyow dhammaysiyo hashii dhiigga lagu daajiyey dhiicaan hashii loo shubiyo dhuuxa iyo heeg raggii dhiiranaan jiray hashii dhababka loo saaray wixii lagu dhammaadiyo hashii dhamacda loo jiidhay dhimashada hashii loo mutiyo dhaawiciyo hoogga dhib kastaba hashii loo mariyo dharasti maadayse dhalandhoolka nabadii waxaad dhidibada waastay dhafarka iyo soo jeed waxaad dhididay hawsheeda qarankaad dhisaysiiyo adeer dhicisay maandeeqe cabdi xaaji dheegow hashii dhiigga lagu keenay
dhuuxyaa ku xidhan qaalintu dhaliyey maaruuye dhadhaabay ku seetaysan tahay tooci dhagax weyne dhidinkiiyo ragaadkii ku jabay way dhutinaysaayee dhulku waa abaar oo halyey dhaharay jiilaale dhaydii iyo dhanaankii yaraa dhaankii caanaha ee dhowr godol waxaa laga helaa dhiil yaroo qura ee dheefta iyo xoorkii badnaa dheeho laga waaye dhegeduhu waxay daashadeen dhinacyadeedii iyo haddaan dheeho mawluhu ka bixin dhib iyo laleelka dhiiqay cagaa kula jirtaa dhooqo faraweyn dhagartiiyo hadiimada la galay dhaygag bay helaye dharaarahan huqiyo waxa ay dilay dhiilo joogta ah ee dhamacdii qabiilkaa la shiday duxulo ceebeeda dhiriq baa la faaqfaaqayaa dhiiqo iyo ciide dhiilay durbaanka u tumeen dhaanto iyo heese dhegxumaantii loo baday mar kale dheeligeed dugiyo wixii aad dhammaysay misana dib ugu dhuunteena gobonnimadu wow dhalasho iyo dhiigga diirraniyo dhaawaca ninkii dhayi jirow dheeli hadafkiiyo dharaartaadii bay taagan tahay dhimatay wiilhooge dhaxalkaagii lagu raystaybaa loo dhutinayaaye dhanaanaatay xaajadu hadday dhabaqday hawshiiyo awgeed hashii loo dhintiyo dheeftii waa halise dhudhunkay ka jebiyeen adeer dheeho iyo laaqee dhuuxlahadii way qooman tahay dhumucda weyneyde dhawaaqaagii baa loo darsaday dhiiranaan jira ee xaajada dharkaad qaban jirtaa dhuuggu cunayaaye dhinacaad ku beegnayd hadda layga soo dhacayo dhaxan baa ka soo neeftay iyo dhoomir xoogsada ee si kastoon u dhaanteeyo dhololo suugaanta dhambaal iyo fariin baan tegayn dhuuxa aakhiro ee dib miyaad u soo dhalanaysaa dhimata wiilhooge wabilahi tawfiiq gabaygaas dhambaal aakhiro intaasi baan kusoo afmeelaya kolley waxa ku jira iyo dee macnaha iyo ujeedku uma baahna inaynu faahfaahino waxaan filayaa qof kasta oo dee suugaanta wax ka yaqaan ama af soomaaliga si fiican u fahmaya inuu garan karo turjuman karo xaaladda iyo gabayga macnaha uu gudbinayo waayo maba qarsoona